Gabadhan iyadoo howl maalmeedkeedii caadiga ah ku guda jirta waxaa gadaasheeda soo istaagay wiil yar, isla markiina sawir ayay ka qaaday. Sikadiisa wiilkan yar boorsadeedii ayuu ka qaaday wuuna kala cararay, iyadana way ka daba qaylisay oo way ka daba orday. Gabadhii waxay ciirsataba wuxuu uga dhuuntay geed, balse iyadoo daalan ayay mar kale aragtay, way ka daba qaylisay wayna ka daba orday. Wuxuu wiilkan yar cararaba wuxuu ag maray oday waayeel ah, balse gabadha ayaa ku qaylisay oo waxay tiri maxaad iigu qaban weyday? Waa la yaabay halkee buu wiilkan yar boorsadeeda ula cararayaa. Dadka deegaanka oo aad moodid inay qorshahan wax ka dhiseen ayaa dhammaantood soo wada baxay markay ogaadeen inay gabadhan xaafadooda soo gaartay. Wiilkii yaraa gabadhi ayuu u soo taagay boorsadeeda isagoo raba inuu u celiyo, laakiin inta aysan qaadan, gabar yar ayaa qalin u soo taagtay. Sidoo kale waxaa dhinaceeda ka soo muuqday hooyo da' ah, taasoo iyana koob shaaxa u keentay. Gabadhan markay aragtay in carruur iyo ciroolaba ay sitaan sabuurado, ujeedkooda ayay fahantay, way qosashay, wayna ka aqbashay rabitaankooda. Cilmigu waa kan isku xira bulshada, haddaba aynu isku tagno oo aan ku deeqno waxbarasho. Muuqaalkan sii sheer gareeya. Wuxuu ahaa koob shaax ah, balse wuxuu ahaa koob waxbarid ah.